والنبي صلى الله عليه وسلم هداد أودي كرتو إنينا عورض هذا عيدنا أركين سمي النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا عورض هذا يسن أركين وحي أود هذا كبح موياه وحي أود هذا نفس يسن موياه soo bandhigid adigoo qaawan iska duubid muuqaal waa waxyaalaha aan bulshada Soomaalida looga baran meel kasto ay dunida ku nool yihiin Queen Canab waxay ka mid tahay hablaha Soomaalida kuwada isticmaala baraha bulshada gaar ahaan aalada TikTok oo muddooyinka ugu dambeysay noqotay meel runtii la isku soo qaawiyo amba suuli noqotay si kastaba ha noqotay Queen qaawan waa hablaha sida suuliga u soo gala TikTok si kastaba ha noqotay waxa dhacay in muuqaal laga duubo runtii baraha bulshada uu si weyn ugu faafo hadaba intaanaan muuqaalka iyo sidoo kale siro badan oo hayno aan ku soo bandhigin halkan waa kanaalka ansixinta wararka share gareey la wadaaga asxaabtaada iyo dhammaan umada Soomaaliyeed sidoo kale kamid noqo boqolka kun ee qof ee ku xiran kanaalka ansixinta wararka subscribe saar sidoo kale share gareey muuqaalka soo dhawow saaxiib muuqaalka oo faahfaahsan Queen Canab waxay kamid tahay hablaha sida suuliga u gala TikTok isla markaana ku soo dhex qubaysta subhanallah waa gabadh iyadoo qaawan ku soo bandhigtay jirkeeda baraha bulshada kala duwan gaar ahaan aalada TikTok ay ku xiran yihiin in ka badan 400 kun oo qof isla markaana 400 kun oo qof ay soo diyaar garoobaan daawashada jirkeeda iyo xubnaheeda kala duwan subhanallah waa gabadh sida suuliga u isticmaasha TikTok isla markaana ku soo bandhigta muuqaal anshax ka fog oo runtii daaha ka qaaday in anshax darrada habluhu halka ay si gaarsiisantay kuwada isticmaala baraha bulshada waa gabadh ka dhaqan xun guud ahaanba hablaha Soomaalida meel kasto ay joogaan waa gabadh anshax iyo dhaqanka hablaha ku tumatay isla markaana ay hablo badan ku daydeen isla markaana iyaduna sida hablahaasi oo kale ay u baabisay Allahu akbar waa gabadh runtii ay anshaxa iyo sidoo kale dabdarrada ka muuqata ay habluhu inta badan qaarkood ay laba yaabaanba halka hablo kale oo iyaga anshax xumo lagu tilmaamo kuna jira baraha bulshada balse iyadu marka kuwaasi la soo barbardhigo ay noqonayaan kuwa asturan iyagu Allahu akbar saaxiibayaal waxa jiray in saacadihii u dambeeyay muuqaal laga faafiyay gabadhaasi lagu magacaabo Queen Canab oo marka horeba qaab anshax darra u soo gali jirtay baraha bulshada gabadhani anshax darrada social media u isticmaasha sida suuligana TikTok u gasha kuna dhexmaadata marka ay u baahan tahay ayaa waxa ay ahayd runtii waxaan idin dhageysin doonaa muuqaal ay iyadoo TikTok iska duubaysa isla markaana ay sheegayso in ragga TikTok ku jira ay sayadu ka bixi jaabaninba sidoo kale agtooda ay dharka kula bixi doonto waa subhanallah balila daawo muuqaalkani dadkan Queen Canab maxaa isku qaabisay nimanka TikTok jooga dhan mujida waysa miiga jibiyaan aqtooda waa ku quweysan karaa waani la seexan karaa waani la baashaali karaa agtiina kastuumada iyo dharka xitaa ku dhiganaya waysa miiga jibiyaan koos habiye iyo abgaala iska leh waxa la jiray oo TikTok waalidan iyo tiin waysa miiga jibisiin waa wada seexan karnaa daa'iratiin waa agtiina waa ku quweysan karaa waa ku niiki karaa nin TikTok jooga waysa dhan miiga jibi dambi ma bali qoray badaa agtiis قابي حتى أكونيكيو دم بلي قراء بوق يجري دم بهاي سوي دين مع اسمه قابسين ويلش يصو صح معهن أنا هبيا محل يجري وحي هبيا ويسم يجيبيو لما كهبيا ويسم يجيبيان أكتين وأكونيكي كراء waan filayaa waxay ku hadlaysay inaad maqashay isla markaana aan ahayn runtii wax lagu bartay gabdhaha Soomaaliyeed amba haweenka Soomaalida run ahaantii tan waxay ka mid tahay hablaha baabiyay dhaqanka Soomaalida gaar ahaan dhaqanka haweenka lagu yaqaanay oo ahaa xishood subhanallah hadaba gabadhan ayaa waxa laga duubay muuqaal runtii anshaxa si weyn uga fog isla markaana aan is odhan doonin waxa laga duubi doonaa gabar Soomaaliyeed bal cidda duubtay iyo sidoo kale inta aynan ugu dagalin kaligeed ayaa heed isla markaana suuliga waxa ku jira iyadoo kaliya isla markaana muuqaalka kaligeed ayaa iska duubtay subhanallah waxay ku duubtay gacanteeda waxana ay soo gelisay baraha bulshada si jirkeeda iyo sidoo kale xubnaheeda loo arko subhanallah waana runtii arin ama kaag iyo sidoo kale fajacayso ku abuurtay guud ahaan Soomaalida meel kasto ay joogaan waana arin si weyn loola yaabay maaha runtii dhaqan Soomaaliyeed iyo sidoo kale caado Soomaaliyeed iyo sidoo kale arin looga bartay Soomaalida culimada Soomaalida ayaa iyaguna markay arinkaasi maqleen sidoo kale qaarkood kuwada baraha bulshada isticmaala ay arkeen run ahaantii ay la yaabeen isla markaana fajiiso ay ku noqotay sidoo kale bulshadu waxay hadalhaysaa isla markaana ay sida weyn ula yaaban tahay gabadhan intii muuqaalka gacanteeda iskaga duubtay kadibna baraha bulshada la soo galiyay laguna faafiyay isla markaana aan ka soo hadlin oo juuqda jartay subhanallah gabadhani bal ila dhigayso iyadoo muuqaal sharaxaysa isla markaana sheegaysa inuu ku jiro shaydaan isla markaana jecel isqaawiska iyo sidoo kale dharka dhigato subhanallah wali runtii ma arag qof sidaas iyo kale sheegay isla markaana waxa igu jira jin isla markaana waxaan qaataa telefoonka kadibna dharka ayaan dhigtaa kadibna muuqaal ayaan iska duubaa runtii ma aha wax run ahaantii bulshada Soomaalida meel kasto ay joogaan looga bartay bal ila daawada muuqaalkani iyadoo kaga hadlaysa isla markaana ku sharaxaysa bal waxyaalaha haysta iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay ka cabanayso mararka qaar gabadhani ayaa dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyaalaha lagu arkay ayay kamid tahay waxay soo duubaysaa iyadoo Quraanka Kariimka akhriyaysa isla markaana
si wanaagsan ugu cod macaan oo isodhanayso tani maaha shiikhadba kadibna in yar kadib waxaad arki doontaa iyadoo ku dhex qubaysanaysa TikTok-ga baleela daawo muuqaalkani ay ku sharaxayso waxyaalaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay iyadu la kulanto أنا روحان أقام فانت روحان سبحان الله عند خابنا الله بحج عش إسقاب أنت مرة قارئ بصدقت بوره وكنوش هدك جيب ساعة كده هدي بصدقت وقتي مسكح ذا المليا كده أنا واسك الصعدة موي روحان تسيب شقيصته سو مع روحان تسا أنا إسكي قابس أنا شيقة أو أكتب ساجدة كأدماء هاي هوارنا إضافة يا أخي روحان تس عند بين الله isqaabinta jeceshahay ha ila yaabeen marka qarada soo qaabiyo naag waalan walaalkeeda cashta Allah iyo calcaliye ma fahanteen waxwaan waxaan badaan binaag ruuxan ku jirta ay macniga qaldan meelaha ruuxa marka lagu sameeyay tagada geesiyaal diin ruuxaadiga bixiyade waa tahay waxyaalahaasi ay ku hadlaysay runtii ma filayo inay noqon doonaan waxyaalaha aqliga saliimka ay u qaato run ahaantina waxyaalo malawaala oo iyadoo ay nooga sheekeynayso sida sheeko xariiro oo kale ay nooga sheekeynayso ayaan anigu shakhsi ahaantayda u arkaa kadib markaa maskaxdayda iyo dareenkayga la kaashaday gabadhani ayaan runtii markaan arkay waxaan filayaa inay tahay qof aan dhamayn isla markaana aqligeeda ugu soo ku fileen iyo inay tahay qof waxani aanimo iyo sidoo kale mafac iyo magacba ku raadinaysa Allahu akbar runtii maaha waxyaalo hablaha Soomaalida looga bartay in hablaha Soomaalidu ay soo qaaween isla markaana magac ay ku raadiyaan jirkooda iyo sidoo kale xubnahooda muuqaalada ay gabadhani ku soo bandhigto baraheeda bulshada kala duwan gaar ahaan barteeda Instagram-ka ayaa waxaan ku aragnay sidoo kale barta TikTok-gaba oo ay aad u soo geliso muuqaalo anshax ka fog ayaa waxaan ku aragnay muuqaalo la yaab leh runtii aynay aad u adag tahay inay sameeyaan haweenka Soomaalidu mararka qaar kood waxaan isdhaahdaa wartan Soomaali midhama aha ee afka ayuun bay ku hadlaysaa Allahu akbar run ahaantii dadka qaar ayaan u qalmin in Soomaalinimada lagu sheegay isla markaana gacan bir lagu qabto ay tahay waayo waxay dilayaan dhaqankii soo jireenka ah Soomaalidu ay lahaayeen sooyaalkii Soomaalida iyo sidoo kale haweenka Soomaalida magacii weynaa ee ay ku dhex lahaayeen bulshada Soomaalida sanadihii u dambeeyay waxaanu ku jirnaa aqrasabaan haweenka oo iyagu run ahaantii waxyaalihii ay u yaqaaneen ceebta iyo sidoo kale fijiisada ay hadda noqdeenba waxyaalo falgal iyo caado la noqday run ahaantii qarniyadii hore ee Soomaalida waxa la arki jiray haweenka hadii ay masarku ka dhaco inay ahaan jirtay run ahaantii waxa aad iyo aad ay gabadhaasi uga murugoto isla markaana ay toban cisho ay waxba cuni jirinba waa masar kaliya oo kaga dhacay ay dabayl ka riday waliba aan si gas uga dhicin ay 10 cisho aan waxba cuni jirin gabadha Soomaaliyeed waa waayay hore balse hadda waxay ku soo labisanayaan khafiif mara khafiifa isla markaana ay suuqa ku soo marayaan iyagoo madax qaawan runtiina waa waxyaalo aad iyo aad runtii lagu xumaado aalada TikTok ayay haweenka qaarkood u soo galaan sida suuliga oo kale way ku qubaystaan run ahaantiina iyagoo raadinaya magac balse aan saahayn wax kale inay raadinayaan Allahu akbar hadaba gabadhani ayaa muuqaalkeedani waxa uu noqday runtii muuqaal si weyn baraha bulshada ugu faafa sidoo kale saacadii u dambeeyay waliba sidoo kale miradii u dambeeyay si weyn baraha bulshada lagu qaadaa dhigi isla markaana ay sheer garinayeen inta xumaha jecel runtii waxay soo dhigeen baraha bulshada kala duwan ay ku xiriirda bulshadu iyagoo siyaabo kala duwan uga falcelinaya isla markaana ka hadlayay hadaba waxa la filayaa in saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan culimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan isla mar ahaantaana arrinkan runtii ay bulshada Soomaaliyeed run ahaantii ka wacyigelin doonaan walow bulshadu ay haatan culimada si weyn aanay u dhigeysan balse waqtiyadii hore iyo waqtigan marka la soo barbardhigo bulshadu ay ahaayeen kuwa wax qaata balse hadda dhalinta imika kacday ay saaheen qaarkood kuwa wax qaadanaya kumanaanka sare ee soo socda hadii wax loo sheego ma ilaaha inay wax qaadan doonaan kuwane si kastaba ha noqotee saaxiibayaal muuqaalka shargareey la wadaaga asxaabtiina dhammaan umada Soomaaliyeed sidoo kale inta sugaysay in muuqaalka Queen Canab aan bartani soo dhigi doono ma aha runtii waxaynu nagu arki karno isla markaana aynu daawan karno sidoo kale isla markaana aynu si faafin karno waa runtii waa arrin la yaab leh isla markaana mucjiso run ahaantii aynu ku tilmaami karno inagu waxaanu leenahay iyadana Allah soo hadeeyo iyada iyo sidoo kale inta kale ee xumaatada wada isla markaana ku jirta baraha bulshada kala duwan isla mar ahaantaana iyaguna sidoo kale TikTok u isticmaala sida suuliga waxaanu leenahay Allah haydi soo hadeeyo dhamaantiinba runtii maaha runtii gabadh Soomaaliyeed inaanu ku eegano waxyaalaha noocan oo kala isla markaana waxa weeye inaanu ka qabanno hadii aanu nahay bulshada Soomaalidu waxay ahaayeen kuwa markasta isgarab istaaga isla markaana wax walba iska caawiya isla mar ahaantaana dhaqanka iyo sidoo kale xishoodka iyo sidoo kale midnimada Soomaaliyeed mar walba si weyn ugu dadaala hadaba waxaan rajaynayaa in haweenka Soomaalida gaar ahaan kuwa TikTok isticmaala in dhamaantoodba insha Allah ay asturnaanta ku dadaali doonaan sidoo kale gabadhaasi muuqaalka laga duubana waxaan leeyahay Allah soo hadeeyo bal sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee faafinaysa muuqaalkaasi waxaan leeyahay Allah ceebtiina ha asturo ee ka daayay muuqaalka aad faafinaysaan waa
insha Allah waxaan rajayn doonaa in muuqaalkaasna ay bulshada Soomaalidu ay dhulka dhigi doonaan isla markaana ay ka saari doonaan kuwa soo galiyay barahooda bulshada ee kala duwan si ceebtooda Allah u asturo iyagana waxaan leenahay ceebtiina Allah asturo ka saara idinkana bulshada Soomaaliyeed diyaatiin waxaan rajaynayaa inaad ceebta qofka kale asturi doontaan si ceebtiina Allah u asturo mahadsanidin saaxiibayaal sheer gareey muuqaalka la wadaaga asxaabtiina dhammaan ummadda Soomaaliyeed